gudoomiyaha ammaanka ee ismaamulka Meru Fred Ndunga ayaa sheegay in xaaladda abaareed ee ismaamulka Meru ay weli tahay mid aad u xun iyadoo 35% dadka ismaamulkaasi ay dawladda iyo hay'adaha gargaarka ka sugayaan cunto gargaar ah. gudoomiyaha ammaanka oo shir gudoomiyay shir looga arrinsanayay xaaladda abaaraha ee ismaamulkaasi ayaa sheegay in 9 ka mid ah 12 deegaan ee ismaamulkaasi ay ka faa'iideysteen raashinka gargaarka ah ee dawladda. Ndunga ayaa hay'adaha ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha si loo xaqiijiyo in cidna aynan abaarta saamaynin. Ndunga ayaa sheegay in inkastoo qaar ka mid ah deegaanada ismaamulkaasi aynan ka faa'iideysan raashinka gargaarka ee dawladda ay haddana u baahan yihiin gargaar. Waxa uu ka codsaday gudoomiye ku-xigeenada deegaanada in ay xiriir la sameeyaan waaxda waxbarashada si loo ogaado goobaha waxbarasho ee ugu baahida badan deegaanadooda si ay u taageeraan barnaamijyada quudinta dugsiyada.